وقوي بري تي في wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu si kul uga hadlay dhaqdhaqaaqyada ay Soomaaliya ka sameeyeen shirkadda kawlka shirkadaha ee DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Wasiir Cawad oo wareysiisay telefishinka Al Arabi ayaa eedan culus tusha uga tuuray mas'uuliyiinta shirkadda DP World isagoo oo sheegay inay shirkadda DP World ay halis gelisay madax banaanida dalkii la isku oran jiray Soomaaliya. Shirkadda DP World way xumaysay waxaana ay khatar gelisay madax banaanideena iyo midnimada dhulkeena walina faragelintii ay nagu sameeynayay way socotaa. sidaasi waxa yiri wasiirka arrimaha dibadda dalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. wasiirka ayaa sheegay boqortooyada Imaaraadka Carabta ay ka sugayaan inay arrintan wax ka qabato. sida naloo sheegay shirkadda DP World waa shirkad gaar loo leeyahay waxaan rajaynaynaa in dawladda Imaaraadka Carabtu ay soo dhax gasho oo ay ka joojiso faragelinta ay nagu hayso. isla markaasna waxaan filaynaa inuu dib u soo laaban doono xiriirkii Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabtu. annagu waanu samirnay laakiin samirku waxa uu leeyahay xad sida dal kastoo adduunka ku yaala. waxaanu diyaar u nahay in aanu difaacno midnimada dhulkeena iyo madax banaanideena iyo in aanu difaacno maslaxadda shacabkeena. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda dalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa qiray in xiriirka dawladdiisa ay la leedahay Imaaraadka Carabtu uusan wanaagsaneyn waxaana uu si dadban u qeexay sababta arrintaasi keentay inay salka ku hayso shirkadda DP World. xiriirka naga dhaxeeya Imaaraadka Carabta nasiib darro ma aha sidii hore waa uu ka hooseeyaa xiriirkii caadiga ah ee aan la lahayn jirnay Imaaraadka Carabta. annagu si aan hore u sheegnay waxaan rabnaa inaan xiriir walaaltinimo xiriir iskaashi oo ku dhisan ixtiraam la yeelano dalalka aan walaalaha nahay. waxaan rajaynayaa in uu dhamaado khilaafka u dhaxeeya dalalka khaliijka iyo in wadamadan aan walaalaha nahay ay ixtiraamaan midnimada dhulkayaga iyo madax banaanida siyaasadeed iyo sidoo kale midnimada shacabkayaga. carada dawladda Soomaaliya ay u qabto shirkadda DP World ayaa soo ifbaxday markii shirkaddu ay shaacisay mashaariic ay ka fulinayso dekedda magaalada Berbera ee Somaliland. DP World ayaa sidoo kale sheegtay inay dhisayso dekedda magaalada Berbera arrintaasi oo ay si weyn uga soo horjeestay dawladda Soomaaliya. sidoo kale waxay shirkadaasi laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ay ku dhawaaqday mashaariic ay la damacsan tahay dekedda magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland. sanadkii hore ee 2018 dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu yeertay safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya magaalada Muqdisho iyadoo ujeedada u yeedhida safiirku ay la xiriirtay sidii qaab diblomaasiyadda waafaqsan ay Soomaaliya ugu gudbin lahayd mowqifkeeda ku aadan arrinta shirkadda DP World ee dekedda magaalada Berbera. tallaabadaas ayaa daba socotay markii 12kii Maarch ee isla sanadkaasi 2018 baarlamaanka Soomaaliya gaashaanka ku dhuftay heshiis dhexmaray shirkadda DP World iyo dawladda Somaliland kaasi oo saamiga ugu badan ee dekedda magaalada Berbera ay ku yeelanayso shirkadda DP World halka dawladda Itoobiya loo qoondeeyay 19%.